aniga kolley waxay ii tahay xiise aad iyo aad u weyn iyo munaasabad aad iyo aad u weyn oo ay sababtu tahay awowgii suldaan maxamed suldaan faarax 83 ciddii uu ugu yimi jabhadda SNM ayaan ka mid ahaa shirweynaanu lahayn waan xasuustaa waxa waa suldaankii ugu horreeyay SNM yimi oo aan kaligii imanay isagoo inankiisii curad watana yimi aabihiina wuu la socday suldaan cumar farxadday markaa ay tahay ina suldaan cumar suldaan maxamed suldaan faarax inaan maanta arooskiisiina joogo taariikhdii halganka iyo taariikhdii nabadda inan yaroo imika iska guursanaya oo ayaan dhaweydun la calamo saaray maahe taariikh badan oo ummaddani leedahay buu xambaarsan yahay waa madee halgankii labaad ee ugu cuslaa ee hubka dhigistii qaranka awowgii ninkii hagayay ee hogaaminayay buu ahaa suldaanka markaa waxaan leeyahay marka ugu horeysa waanu kuu ducaynaynaa waxaan leenahay baaraka allaahu laka wa baaraka calayka wa jamaca baynakumaa waxaan xasuusinayaa suldaanka aabbihii iyo awowgii labadaba aanu soo wada halgannay aan u sheegayaa oo xasuusinayaa taariikh badan baad xambaarsan tahay waayeelnimo iyo deganaansho ayaa lagaaga baahan yahay dadkeenna inta kalena waxaynu u baahannahay inaynu maxaanku dhahday aynu la garab gallo oo aynu xoojinno arrimaha kale waxaan u malaynayaa dardaaran baa had iyo jeer la sameeyaayo ilaa iyo xafladdii arooska qoladeeda siyaasiyiinta la leeyahay hadalka u kaadiya waanu u kaadinaynaa khayrna waxaynu iska ognahay in ilaahay abaarta inaga siiyo allana inoo gargaaro aad iyo aad baa u mahadsantihi